adduunka aynu ku noolnahay waxaa ka jira 44 waddan oo xidhan ama si aan lahayn wax marinbadeed ah oo ku xidha caalamka intiisa kale, halka laba ka mid ah 44kaasi waddan ay yihiin kuwa xidhnaantoodu ay tahay dhabal oo ah Tajikistan iyo Uzbekistan. Dowladahani waxay si joogto ah halgan fog uga qaadaan halista marinbadeed oo ay gaadhaan. Su'aashu waxay tahay, maxay dowladuhu dhab ahaan marinbadeed ugu baahdaan? Maxay tahay sababta dowladaha haysta marinbadeed sida innaga ka Soomaali ahaan oo alle kansho inoo siiyay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer qaaradda Afrika aan uga baraad la'nahay, oo miyaysan habboonayn inay inoo noqoto nimco aan ugu toqno asaageen? Waxaan kugula wadaagayaa muuqaalkan ku dhowaad 4 qaybood oo ay muhiim tahay in dalku helo marinbadeed. 1. Ganacsiga iyo dhaqaalaha. Dunida maanta dhaqaaluhu waa isha kaliya ee ugu muhiimsan ee noloshan. Dhiig kasta oo ka daadanaya guudka dunidana hubaal waa mid ku dhisan raadinta dhaqaale uun. Sababtoo ay tahay dowladaha badda ka xidhan waxay ku tiirsan yihiin wadamada dariska ah si ay badeecadahooda u gaarsiiyaan suuqyada caalamiga ah. Tani waxay gaadhaysaa kharashka gaadiidka oo sarreeya, waqti lumin dheer, xadidaadda suuqgeynta oo keenaysa in badeecadaha waddankaasi noqdaan kuwo tartan la'aan ah. Ganacsatada wadamadaas xidhanna waxa uu ah sida kulubiyaha ugu baahan yahay inay helaan marinbadeed, iyagoona door bida mar walba inay ka garab dhawaadaan hogaamiyayaasha wadamada badda leh ee dariska la ah si ay u beerlaxawsadaan. 2. Cunto iyo ammaan dadweyne. Dalka aan xeeb lahayn wuxuu ku tiirsan yahay wadamada dariska ah si uu soo dejiyo cunto iyo sahay nololeed. Haddii waddanka dariska ah uu la kulmo dhibaatooyin siyaasadeed ama amni, waxay si toos ah u saameynaysaa waddanka xidhan, cunto ahaan iyo amni ahaanba. Cilmi-baarayaal sare ayaa tilmaama haddii waddan landlocked ahi xasilooni darro la kulmo inuu halis ugu jiro cunto yari iyo sicir barar daran. Marinbadeed la'aantu waxay keenaysaa nuglaansho dhaqaale iyo mid amni. 3. Maalgashiga iyo horumarka. Maalgashadayaasha caalamiga ahi waxay door bidaan wadamada leh marinbadeedka maxaa yeelay gaadiidka iyo dhoofintu waa sahlan tahay. Taasi waxay wadamada landlocked ah ka dhigaysaa kuwo aan la dooran karin. Maalgashadayaashuna waxay eegaan fududaanta gaadiidka iyo ganacsiga. 4. Siyaasadda iyo istiraatiijiyadda. Marinbadeed la'aantu ma aha oo keliya dhibaato dhaqaale balse waa arrin siyaasadeed. Dowladaha xidhan waxay la kulmaan cadaadis siyaasadeed oo uga yimaada wadamada xeebaha leh, heshiisyo xadidan oo xagga isticmaalka dekedaha ah, halista iyo marinbadeedada la xidho xilliyada colaadaha siyaasadeed, iyo in dowladaha xeebta leh ay baddu noqoto midida keliya ee ay ku uurdooxaan dalkaas. Si kastaba ha ahaatee, baduhu waa kansho iyo ayaan uu eebba ku galladay kuwa leh, si muhiimkaasi ay dareemaan kuwa aan haysan. Soo kalena 4 caqabadood waxay dowladaha xidhani ugu kala dheereeyaan hadba inta ay gaadhsiisan tahay awooddooda siyaasadeed ee arrimaha dibadda. Saas oo ay tahayna, sababaha si way ku kala duwan yihiin. Intan ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena. Haddii aad muuqaalkan xun ka faa'iiday, like saar, siina share garee.